saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha magaalada Gabiley ayaa maanta shir jirayd oo ay ku qabteen kaga hadlay xadhigga wariyay Hon Cable TV uga howlgali jiray gobolkaasi Gabiley oo muddo laga joogo 10 maalmood ku xidhan magaalada Jigjiga iyadoo aan ilaa hadda la ogeyn meel uu ku sugan yahay aan ay carabka ku adkeeyeen isla markaasina farta ku fiiqeen ka aamusnaanta xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland sidoo kalena waxay baaq u direen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland maamulka dawlad deegaanka Itoobiya iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladoodii kamid ahaa baahinta madaxa bannaan ee gobolka Gabiley ay halkan isugu yimaadeen in ay ka hadlaan arrin tan iyo bilowgii Ramadaan ee soo socotay oo ahaa xadhigga wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim oo sifo sharci darro ah ugu xidhan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaasina laga qafaashay magaalada Togwajale ee xuduudda Somaliland iyo Itoobiya isagiyo afar wariye oo kale markiiba la soo sii daayay ayaa si gaar ah waxa loo helay wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim waxaan Cabdi Maxamed Cumar baaq dheer halkan ugu diraya aniga oo ku hadlaya afka saxaafadda madaxa bannaan ee gobolka Gabiley ee halkan fadhida inuu sida ugu dhaqsaha badan leh u soo sii daayay wariyahaasi isagoo wax allaali wax dambi galay aan ilaa hadda deegaan la horkeeyay waxay warbaahinta madaxa bannaan gobolka Gabiley isku soo baxday inay ka hadasho xadhigga looga kacay wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim oo maanta tamaad ku aftay banduur deegaanka Soomaalida Itoobiya magaalada Maxsi Jigjiga ugu hore waxaan kan baaq dheer uga diraya madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Axmed Maxamed Marane iyo madaxweyne waxa sahay madaxweyne dalka la jaara kaaga maana baran habrashada kaaga maana badan tacdiid loo gelin warbaahinta madaxa bannaan dalka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan ka codsanaa si ugu dhaqsiya badan xorriyadiisa ugu soo celiso wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim talabaad waxaan halkan cambaarin uga jeedinayaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumadda hogaaminayo sida uga gaabsatay inay ka hadasho xadhigga loo geystay wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim waxaan leeyahay madaxweyne waxaan nasiib darraa xukuumadda ka hamstay dadkoogii waxa ayaan darraa mas'uuliyadda doon weeyay dadkii ay mas'uulka ka ahayd waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda xukuumadda hogaaminayo hayn la'aanida kama xadhigga Mukhtaar Nuur Ibraahim soo dinti laakiin waxa baranaysaa waxaan ka hadlanaa oo aad uga xunnahay xadhigga wariyay Hon Cable TV uga soo warramay gobolka Gabiley Mukhtaar Nuur Ibraahim oo maalintii tobnaad ku xidhan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isla markaasina ugu xidhan sifo sharci darro waxaanu codsi iyo baaq dheer u diranaa madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar madaxweyne Mukhtaar Nuur Ibraahim waa inaad sida ugu dhaqsaha badan u soo sii deysaa oo xorriyadiisa u soo celisaa saxaafadda madaxa bannaan ee ka howlgasha gobolka Gabiley ay isugu timi inay ka hadasho xadhigga sharci darrada ee lagu la kacay wariye ka howlgali jiray gobolka Gabiley Hon Cable TV Mukhtaar Nuur Ibraahim kaasoo muddo 10 cisho ku xidhan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ilaa haatan aan lahayn wax rasmi ah oo xaqiiqo ah oo ku saabsan xadhiggiisaas waxaan daba halkan aan baaq uga diraya madaxweynaha dawlad deegaanka Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar oo aan leenahay madaxweyne kugumaanaan ogeyn cadaalad darro kugumaanaan ogeyn dhibaatada loo geysta shakhsiyaadka kugumaanaan ogeyn caburinta saxaafadda madaxa bannaan intaas oo dhan annagoo kugu ogeyn xasaanu ka codsanana oo aanu doonana inaad si degdeg ah uga howlgasho xadhigga wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim oo aanu doonano in sida ugu habboon uguna dhaqsaha badan leh aad uga soo jawaabto madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxa leeyahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Axmed Siiraayo kugumaanaan ogeyn habrashada baran oo kugumaanaan aqoonin oo habrashada sharci darrada dadka loo geysanayo waxaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland waxaanu nahay muwaadiniintaadii waxaanu nahay muwaadiniintii dalkan u dhashay inaad arinta xadhigga wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim aad si degdeg ah wax uga qabato oqaasha iyo salaadinta Somaliland waxa leh war haddii dawladda Somaliland ay qof xidho sidaad uga hadashaan waa la arkay wuxuu doonaa qofkaas isugu nimid jirayd oo ku cambaarayno xadhigga wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim oo muddo 10 cisho ku xidhan dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kula kacay xadhiggaasi madaxweynaha dawladda Soomaalida Itoobiya marka madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamed Cumar waxaan ka codsanaynaa inuu wariyahaasi xorriyadiisa u soo celiyo horena waxa leeyahay waxa noo sheegtaan haddii aynan damaano qaadi kareyn sharciyada Somaliland iyo dadka Somaliland noo sheeg waxaan markaa xukuumadda Somaliland ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan uga howlgasho sidii loo soo deyn lahaa wariye Mukhtaar Nuur Ibraahim oo si sharci darro ah u xidhan maalintii tobnaad
dowlad deegaanka soomaalida Itoobiya ayaan jaakanahay si kastaba ahaatee waxaa loo dhagtaagayaa halka ay ku dambeyn doonto arrinta wariyaha oo aan war rasmi laga haynin waa Cabdi Cabdilaahi Daahir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Gabiley